السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa ay idilkiinba meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan idinkugu talagalay maanta oo ah maalinimo jimco ah. waxaan idin leeyahay jimca mubaarak dhamaantiin. waa jimcihii ugu horeeyay bisha Carafo ama Dilxaj. waa bil barakaysan marka waxaan idinkaga hambalyeeynaya bilashada bishaas iyo jimcaha oo isku soo aaday. akhyaaray meel kastoo aad joogtaan waxaan idin hayaa barnaamijkeena ugu horeeya maanta qodobo aad u xiiso badan. haddaba qodobada barnaamijkan idinkugu soo gudbin doono waxaa ka mid ah Mareykanka taliskiisa dhexe ciidamada ayaa waxay sheegeen inay ka hortageen weeraro cusub oo ay soo qaadeen Xuutiyiinta. maxaa kala raacay sheekaan idinkaga hayaa. waxaa soo kale aan sheeko xiiso leh idinkaga hayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay ka dhex qaraxsan tahay Ruushka iyo Shiinaha oo dhinac ah iyo macalinka weyn iyo xirtiisa oo dhinac ah. waxaa la isku haystaa qorshihii Biden ee la keenay halkaas oo markaa in la marsiinayo iyo in kale la isku hayaa. mar hore aan idiin sheegay in xaaladdu markii halkaa la keeno aanay sahlanaan doonin. iyaduna sheekaan idinkaga hayaa. wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa isaguna socdaal wuxuu ku tagayaa toddobaadka soo socda Israa'iil si uu markaa halkaa maaragtay culays ugu saaro sidii wadahadallada loo meel marin lahaa. haddaba qodobadaas ayaan barnaamijkeena idinkugu soo gudbin doonaa. kula wanaagsan ee khiyaaray meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena ugu horeeya maanta oo jimco ah aan idiin soo gudbinayno. haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa golaha ammaanka ayaa la isku haystaa. macalinka weyn qaraarkii odaga uu keenay ayuu rabaa inuu golaha ammaanka marsiiyo. Shiinaha iyo Ruushkuna halkii ay u taagantay. anigu waa idiin sheegay shalay markii la yidhi Soomaaliya waxay kursi ka heshay golaha ammaanka sanadka soo socday sanadka ku xiga. xaalkaasu ma sahlana idin. waa meel xaalkeedu xun yahay. laba group loo qaybsan yahay. haddaa macalinka weyn ka hor timaadana haddee xaalkaagu ma fiicna. Soomaaliya waa iska tabar daran tahay. haddii dhanka kale aadana xaalkaagu ma fiicna. marka waa allow sahal umuura ilaahu noo fududee waayo. dhanka aan ka eegayno Soomaaliya way guulaysatay kursigii aan helnay way fiican tahay hambalyo waa wax wanaagsan. dhankan kale meesha maxaa ka socda kursiga aan ka helnay rag waaweyn isku haysta. xaalku marka halkaas uu maraa. haddaba marka Aljazeera wixii ay ka qortay haddaan idin dulmaro. khilaaf ayaa la sheegayaa inuu soo kala dhex galay Ruushka iyo Shiinaha iyo Mareykanka. khilaafkan ayaa waxa uu salka ku hayaa qaraarka golaha ammaanka la keenay ee ku saabsan arrinta Gaza. haddaba warbixinta marka ku saabsan sheekadan oo aad u xiiso badan ayaanu halkan idinkugu soo gudbinaynaa. Ruushka iyo Shiinaha ayaa walaac ka muujiyay shalay oo Khamiis ahayd qaraar qabyo ah oo Mareykanku u gudbiyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo taageeraya soo jeedinta madaxweyne Biden iyo xabad joojinta marinka Gaza. Israa'iil waxay sidoo kale ku dhawaaqday inay diiday qaraarka qabyada ah. diblomaasiyiinta ayaa sheegay in Algeria oo ah dalka kaliya ee Carbeed ee xubinta ka ah golaha sidoo kale waxay muujisay inaysan iyaduna ku qanacsanayn qaraarkaasi inay taageerto. go'aankan ayaa u baahan in la ansixiyo marka uu helo 9 cod dowladaha xubnaha joogtada ah iyo kuwa aan joogtada ahayn ka kala socda. laakiin kuwa veto-ga iska leh oo ay ka mid yihiin Faransiiska, Britain, Shiinaha iyo Ruushka midkood hadduu hor istaago qaraarkani ma shaqaynayo. toddobaad ka hor ayaa madaxweynaha Mareykanka wuxuu ku dhawaaqay qorshe 3 marxaladood ah oo ku saabsan sidii loo soo afjari lahaa dagaalka ka soconaya Gaza. Mareykanka ayaa taageero caalamiya u raadinaya hindisahan oo ay weli daraasaynayaan dhaqdhaqaaqa wax iska caabinta Xamaas
oo iyagu markaa baaritaan ku haya. haddaba 15 xubnood ee golaha ammaanka ayaa waxaa qoraal qabyo ah loo qaybiyey maalintii shalay ahayd, waxaana la sheegayaa in ay ka baaraan degayaan. qoraalka markiisa hore isniintii ayaa la qaybiyey, shalayna nuqulkii oo wax laga bedelay ayaa la keenay, laakiin waxaa ku caddayd in Israa'iil markii hore ay diidanayd, laakiin hadda ay leedahay wax dhiba ma jiraan. haddaba waxay ka koobanayd qaraarkan qaabka iyo xabad joojinta iyo sida dagaalka halkaasi wax looga qabanayo, laakiin diblomaasiyiinta ayaa sheegaya in xubnaha golaha qaarkood ay su'aalo ka keeneen in Israa'iil ay dhab ahaantii aqbashay qorshahaas, ayna doonayaan in golahu u hoggaansamo dalabkii uu soo saaray bishii Maarso ee ahayd xabad joojin degdeg ah iyo in si shuruud la'aan loo sii daayo dhammaan maxaabiista. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa horey ugu dhawaaqay inuu diiday soo jeedinta Biden, wuxuuna sheegay inaysan ogolayn in dagaalka lagu soo afjaro wejiga labaad soo jeedinta Biden sida la sheegayo, wuxuuna ku adkaystay in aan la joojin doonin dagaalka ilaa arrintan wax laga qabanayo. waa tahay warbixintaas marka waxaa ka diyaarisay Al Jazeera, halkaas ay idinkugu turjuma. marka meesha maxaa nooga soo baxaya? meesha marka waa la ishayaa golihii ammaanka xaalkiisu markii macalinka weyn wax keeno Shiinaha iyo Ruushku way diidayaan. Ruushka iyo Shiinuhu markay wax keenaan macalinka weyn wuu diidayaa. marka meel waxay noqotay saasa. hadda marka odaga wuxuu leeyahay qaraarkayga hal meel mariyo, iyaguna waxay leeyihiin qaraarka la meel marina maxay golaha ammaanka adiga hortaa soo qaraar ma gaarin, xabadda hal la joojiyo soo ma dhihin. Israa'iil ma yeesh sidee marka kan u shaqaynaa? waa loo qaateen bogto waa caqli gal waaye. doodaa socoto marka meesha waa la isku hayaa. marka macalinka weyn dee sida muuqata waxaa leeyahay durbaba khilaaf xoogan ayaa sheekadiisu ku bilaabatay. mar haddii ay nimankan Ruushka iyo kaasoo horjeestaanna marka xaalku waa marka sheegadu ma fiicnaa la leeyahay. waayahay qodobkaas halkaas ayaan kaga gudbaynaa. qodobkii Xuutiga iyo Mareykanka oo ishaya way noo soo socdaan, laakiin waxaan rabaa markan inaan galo sheeko ku saabsan wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa wuxuu booqanayaa Israa'iil toddobaadka soo socda, bal in arrintan xoogga la saaro. Biden waa dagaalamayaa, waa rafanayaa, bal hawshan hala socodsiiyo. laakiin wixii wax gadmaya ma u eka. haddaba marka aan idin tuso warbixin laga qoray sheekadan, booqasho cusub ayuu Blinken wuxuu doonayaa inuu ku tago Israa'iil. journaalka la yiraahdo Israa'iil maanta oo markaa wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka waxay sheegeen inuu diyaar u yahay inuu booqdo Israa'iil toddobaadka soo socda gudihiisa. haddaba journaalka wuxuu leeyahay booqashadani waxa ay ku soo aadaysaa xilli wada hadalladu ay caqabado badan soo ku hoganayaan, oo markaa in heshiis la gaaro oo la sii daayo dadka maxaabiista, xabad joojin la gaarana dhibaato badan ay ka jirto. waa kaas marka mushkiladda meesha ka jirta wixii marka la isku soo duubay macalinka weyn hawshiisii waa loo yaabaa. wax shaqayna ma u ekaan leh. dadka wax falaqeeya waxay leeyihin sheekadan odaga wax shaqaynaya ma u eka. golihii ammaankana waa kaas Ruush iyo China gees geliye waxaanu ma shaqaynayaan yiraahdeen. hadduu ku soo celiyo golaha la keeno cod ha loo qaado leeyahay midkood hadduu diido waa khalaas isaga uu gacantu iska taagay. marka sheekadu waxay iska noqotay sheeko iska waali ah noqotay, waa lagu wareeray. waayahay waxaan u gudbaynaa Xuutiga iyo Mareykanka maxaa kala haysta saacadihii la soo dhaafay. haddaba waxaa leeyahay journaalka la Sharqul Awsat ayaa wuxuu qorayaa ciidamada Mareykanku waxay sheegeen inay burburiyeen oo ay soo rideen 8 ka mid ah diyaaradaha daroonka ah ee duuliye la'aanta ah ee Xuutiyiintu ay soo rideen oo dhinaca Xuutiyiinta ka yimid, waxayna ku soo rideen badda cas. haddaba faahfaahinta warku way sii socotay. wargeyska wuxuu leeyahay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa maanta oo Jimco ah
waxay sheegeen ciidamadoodu inay ku guulaysteen 8 ka mid ah diyaaradaha duuliye la'aanta ee daroonka ah inay markaa soo rideen kuwaasoo dhanka xuutiyiinta ka yimid waxayna ku soo rideen badda cas dusheeda 24 saac ee lasoo dhaafay haddaba waxaa leeyahay markaa ciidamadu waxay ku guulaysteen inay burburiyaan sidoo kale 2 doonyood oo sida daroonka oo kale u shaqaynaya oo miinaysan oo iyaguna ay xuutiyiinta isticmaalayeen oo ay soo weerar tageen oo lagu soo tuuray Mareykanka ciidankiisa taliska dhexe ciidamada Mareykanku waxay sheegayaan in markaa diyaaradahaasu ay iska caabiyeen oo ay ka hortageen markii weerar ay ku soo qaadeen dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay waxaa la leeyahay xuutiga laftirkiisu waxay rideen gantaalaha balastiga ee loogu talagalay in lagula dagaalamo maraakiibta waxaana la sheegayaa in wararka la helayo ay sheegayaan in xuutigu isagoo ka jawaabaya diyaaradaha laga soo riday isaguna uu khasaare u geystay maraakiibta waa la isdhaafsaday xuuti waa soo jeestay xuuti caadi ma xuutiga caadi ba dhin caadiya ba meeshaas marka mushkilada ka jirta 8 diyaaradood oo daroona doomo daroona zawraq waxa la yiraahdaa doomaha yaryar ee daroonka la yiraahdaa doomaha yaryarka ayagoo daroona jira iyaguna waa lagu ku soo weerar tageen xuutigu marka diyaarad waxba ku weerarayaan daroona doomo daroona iyaguna oo maartay meel fog laga hogaayo rumuud loo haysto ayaguna way dagaalamayaan waa cajiib xuutigu waa ka yaabiyay macalinka weyn ma ana yaabid ma maqashay maxalka weytii ahaysad meel uu ka baxo leeyahay dhanka kale marka warbixinta waxa ugu dambeysay wargeyska Sharqul Awsad uu leeyahay warar kala soo baxay xuutigu iyaguna inay aarguteen oo maraakiib ay la dhiceen gantaalaha balastiga nagti ka galiyeen khasaarana waa geysteen inkastoo aan la sheegin maraakiibta cidda iskala iyo sida ay yihiin laakiin odaygii ay ma doona Yaxya Sariic hadduu imaana generaalkii asagoo qaylinayo imaana ninkaas gacana u taagan aniga qoladaas caadi ma waayahay wararkii ugu dambeeyay Gaza waxa leeyahay dagaalo goosgoos ayaa ka socda bartamaha iyo Rafah labadaas aag ayaa dagaaladu ka socdaan kataabul qasaam waxay sheegeen inay maartay ka hortageen ciidan Israa'iiliyiin isla markaana ay gubeen gaari katarbiila ama cagaf ay dhulka ku qodanayeen ciidamada ay gubeen bartamaha Gaza dhinaca Rafahna hoobiyaal ayaa lagu duqeeyay goob ay ku sugnaayeen ciidanka Israa'iil marka dhinaca xuduudda Masar xaalku marka halkaas uu mara macalinka weyna golaha ammaanka waa la isku haystaa annaga xaalkeena allowna mooti way kursiga u ordayna laakiin meesha igu soo bood ma golaha ammaanka caadi ba marka dawladda Carabeed hadda waxa ku jirta Algeria waa laakiin waa caadi ma Algeria waxay tiri macalinka weyn waxa wadamada ma aniga waxay tiri ma ku jiro macnaha waxaas uu wado macalinka weyn sababta loo diiday ma garanaysaa xabad joojin rasmi ma jirto waa la isku soo noqonaa nagta la iska gelinaa markii maxaabiista laga qaato waxa la diiday waa intaas ila fahamtiin waay marka Algeria waxay tiri waxaan aniga kuma jiro Russia Chinese waxay leedahay waxaan alla soo ordinay wixii hore annaga aan ugu heshiinaa hadda ka hor soo ma ogidin golaha ammaanka inuu maartay hawsha sameeyay marka xaaladdu marka halkaas ay maraysaa marka wali hawshu waa galab wixii soo kordha waa arki doonaa jimco wanaagsan Arafo wanaagsan bishii Arafo way dhalatay ama Dhul-Hijja qof walba soo yaqaano marka waa bil barakaysan waa la soomaa waa la cibaadaystaa marka waa ma sha Allah aan ka wada faa'iideysano barnaamijyadu inaysan 3 noqon laga yaabaa safar yaraan aaday safaraan ku jira marka studio-gii rasmiga ah ma joogo marka sidaas ula socda mar hal laba wixii aan ka gaaro ilaa labada maalmood howlo yar soo qabsanayaan marka waa mahadsantihiin meel kastoo aad joogtaan jimco wanaagsan haddaba barnaamijka wixii fakari aragtay aqabtaan noogu soo qora qaybta commentiska iyo fariimaha sidoo kale barnaamijka waxaa samaysaan subscribe saar YouTube-ka Facebook-na follow garay inta aan mar kale barnaamijka la mid ah ku kulmayno akhyaari meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo